kulantisan saaxiibayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idin lahaantiina waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelkeena. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamo uu horkacayo General Saadiq John oo degmo muhiim ah la wareegay warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Ra'iisul Wasaare Roble oo xubno ka tirsan beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. Guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gado oo kulamo ka bilaabay Kismaayo. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ee wararka aad kaga bogan doontaan saaxiibayaal daawadayaal. Marka hore haddii aad nagu cusubtiin waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan channelkeena oo aad kusoo biirtaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtaduna halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena daawade. qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad qaybta hoose commentiga inooga soo dhiiban kartaa. aynu ku bilaawno. ciidamada horkacaya General Saadiq John ayaa la wareegay degmo muhiim ah. wararka laga helayo gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladda ay gudaha u galeen deegaanka Camaara ee gobolkaasi kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaankaasi. Camaara oo in muddo ah gacanta ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa saakay la wareegay ciidamada hubanta waxaana horkacayay saraakiil sarsare oo ka mid ah ama uu ka mid yahay General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ku sugan deegaankaas oo ka tirsan maamulka Galmudug. ciidamada hubanta ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dagaal kooban ay la galeen kooxda Al-Shabaab waxaana kadib suurtagashay inay qabsadaan deegaankan oo ah mid istiraatiiji ah. sidoo kale ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay fariisimo cusub ka sameysteen halkaasi isla markaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Al-Shabaab. xaaladda Camaara ayaa ah mid degan waxaana soconaya dhaqdhaqaaq ay ciidamada hubanta halkaas ay ka wadaan. howlgallada military ee ka socda deegaanada Galmudug ee uu haatan ku biiray General Saadiq John ayaa ah kuwa la doonayo in looga adkaado dagaalyahanada Al-Shabaab. Camaara oo marar kala duwan ay isku bedeleen ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ayaa dhowr mar waxa ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo halkaasi gaaray ay ka sameysteen fariisimo. ciidamada hubanta ayay sheegeen dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug inaysan dib uga laaban doonin deegaanada ay ka qabsadaan Al-Shabaab. waxaase howlgalkan ku biiristiisa General Saadiq John ay kusoo aadaysaa xilli shaki badan la gelinayo qorshihiisa uu u tagay deegaanada Galmudug oo la xiriirta inuu isu soo sharaxo mid ka mid ah kuraasta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug taala ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka oo kala hadlay doorashooyinka dalka. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo gooni ah la yeeshay danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Barlanka iyo ergeyga gaarka ah ee Norway u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Roble iyo labada safiir ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee hormuudku uu ka yahay Maxamed Xuseen Roble. safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo ergeyga gaarka ah ee dawladda Norway ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble waxay uga mahadceliyeen dadaaladiisa ku aadan sidii dalkan uga dhici lahayd doorasho ku saleysan xor iyo xalaal. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dhinaciisa kaga mahadceliyay safiiradan kulanka uu la qaatay ayaa sheegay inay muhiim tahay in beesha caalamka ay doorkooda wax ku oolnimada ah ee kaalinta ay ka geysanayaan geedi socodka doorashooyinka dalka ay ka qaataan. guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gadana waxa ay kulamo ka bilaabeen magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland. guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gada ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. guddiga oo ka kooban wasiirro ka kala socda dawlad goboleedyada dalka sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa magaalada Kismaayo u tagay sidii ay halkaasi ay ugula kulmi lahaayeen mas'uuliyiinta madaxda Jubbaland, odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gado ee ku sugan magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland. guddigan ayaa markii ay tageen amaba ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib waxaa loo gudbiyay madaxtooyada Jubbaland halkaas oo ay kulan kula yeesheen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gado. kulanka ayaa isugu jiray soo dhaweyn iyo kala warqaadasho waxaana uu guddiga ugu horeen ay ka warbixiyeen waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. guddiga ayaa
warbixin ka dhageystay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland waxa uuna warbixin qoto dheer ka siiyay marxaladii ay soo martay Jubbaland iyo sida Jubbaland ay u gashay dadaalka dheer sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha ka taagan gobolka Gado iyo sida waxyaabaha ay ugu tanaasuleen maamulka Jubbaland si dalka ay doorasho uga dhacdo. Maxamuud Sayid Aadan waxa uu kamid ahaa xubnihii sida weyn marka loo eego dagaalka ugu galay gobolka Gado sidii gacan ku haynta dowlad goboleedka Jubbaland aysan uga bixi lahayn. guddigan ayaase lagu wadaa sidoo kale inay la kulmaan inta ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyaga oo sidoo kale warbixin la xiriirta xaaladda gobolka iyo waxyaabihii ay halkaasi kala soo kulmeen waxa xalku uu yahay la wadaagi doona. ugu dambeyn guddiga ayaase lagu wadaa inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo warbaahinta intaas kadib faahfaahin guud oo la xiriirta waxyaabihii uga soo qabsoomay dadaaladoodii ay ku doonayeen in xal loo helo xaaladda gobolka Gado oo ismarwaa dhinaca siyaasadda galay. gobolka Gado waxa taala kuraas gaaraysa ilaa 16 kursi oo labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ka soo gali doona deegaan doorashada Jubbaland waxaase doorashadaasi buuxda u maamuli doona maamulka degmada Garbahaare ee Jubbaland ay magacaawdo iyadoo ammaanka halkaas ay sugayaan ciidamada booliiska dowladda federaalka kuwa amisom oo dhawaan halkaas la geeyay. gobolka Gado waxa ay kamid ahayd waxyaabihii keenay ama sababay dib u dhaca doorashada dalka maadaama in muddo gobolkaas gacan ku hayntiisa ay ku loolamayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. inkastoo xalkan iyo dadaaladan ay socdaan ayaa haddana waxaa soo baxaya warar kale oo soo baxay oo sheegaya in qaar kamid ah waxgaradka gobolkaas ay mudeeyeen in waxa ka dambeeya bisha 8 Agoosto ee food inagu soo haysa ay maamul gaar ah oo madaxweyne leh ay kaga dhawaaqi doonaan gobolka Gado. xaaladaas ayaase la rumaysan yahay in ay noqon doonto mid waji cusub u rogta siyaasadda gobolkaasi. waxaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo tagay gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbahaare uu dadaal badan uu ku bixiyay sidii la isu soo dhaweyn lahaa dhinacyada isdiidan ee ku loolamaya gobolkaasi Gado. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida Channel daawanaysan waa inageynta waad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xigeen dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa nabaadiino balse saaxiibayaal aynu xusuusino inaad nagu soo biirtaan channelkeena oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadana halkan ay nagu soo baahino barteena waxaad ka heli kartaan warar xaqiiqda ku saleysan kana fog inaynu dhinaca u xaglino wararkeena ku xirnaada nabaadiino mar kale.